السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسر دوادا وركا هبينمو حقت عيارها قضبضا قوة وين وركا وحا كمدا مدحوينها كوحدة كوبادة عكتا ليفربول أو الري فيليب كوتينيو بيب غوارديولا أو شيغي إنان بدلي دونين فالفردي أنتونيو كريزمان أو فافاهي مستقبل كيسالكا أو كو وجهايهاي iyo Luka Modric oo markale ku guuleystay ciyaaryahanka ugu wanaagsan dalkiisa Croatia. qodobadaasi wixii kale nagu soo kordhaya warkeena inuu kugu soo gudbin doona balse hadaad ku cusub tahay channelkeena subscribe inoo saar. aynu ku horeyno madaxweynaha kooxda kubadda cagta Liverpool ninka lagu magacaabo Tom Werner ayaa waxa uu weerar ku qaaday Philippe Coutinho oo hore ugu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta Liverpool. madaxweynaha kooxda Liverpool ayaa waxa uu sheegay in Coutinho sanadkii hore ku qasbay kooxda kubadda cagta ee Liverpool in ay iska iibiyaan iyagoo markaas ku iibiyay lacag gaaraysa 120 milyan oo kooxda Barcelona markaa ugu wareegay. madaxweynaha Liverpool ayaa waxa uu intaas ku daray in Coutinho sababaha Liverpool uga cararayay ay ugu weyneed in uu ku guuleysto koobka UEFA Champions League balse isla kooxday isagu u wareegay ayaa waxa gabi ahaanba ka cirib tirtay in koobkan ay ku guuleysato kooxda Liverpool oo koobkan qaaday isagoona ka cararay garoonka Anfield oo kooxda Liverpool ay ka dhisan tahay. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in ilaa imika uusan iloobin dhibaatadii u geystay kooxda Liverpool Coutinho oo ku qasbay inuu Liverpool ka tago. si kastaba aatee kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa sanadkan kooxda Barcelona ka cirib tirtay Champions League wareega semifinalka lugtii labaad waliba iyagoo 4-0 u adkaaday oo markaasi koobkii lagu soo gabagabeeyay isbuucan gudaha dalkaasi Spain gaar ahaan magaalada Madrid ay ku adkaadeen 2-0 oo kooxda Tottenham Hotspur ay ugu adkaadeen. dhinaca kale Antonio Griezmann ayaa waxa uu ka hadlay mustaqbalkiisa xilli habeennimadii xalay xulka Faransiiska isagoo markaa gool u dhaliyay iyagoo 2-0 ku adkaaday oo markaa ay ugu adkaadeen xulka qaranka Bolivia kulankaasi oo markaas si weyn uga dhaxmuuqday ciyaaryahan Griezmann ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay si weyn waxa loo xiriirinayay inuu ku biiro kooxda Barcelona iyo kooxo kale oo Premier League iyo waliba La Liga dalka Spain ka dhisan iyo sidoo kale Ligue 1 dalka Faransiiska oo PSG ay kamid tahay kooxaha doonaya ayaa waxa uu sheegay in mustaqbalkiisa ilaa imika isagu meel aan ku ogeyn laakiin uu diyaar u yahay in uu markaa ka tago kooxda kubadda cagta Atletico Madrid oo ciyaaryahankan u ciyaaro. Griezmann oo si wanaagsan ugu soo shacbaxay garoonka kooxda Atletico Madrid ayaa waxa uu markaas codsaday in la fasaxo. Atleticna way ogolaatay in ciyaaryahankan ay fasaxi karaan laakiin waxa la leeyahay in ciyaaryahankan markaa lacag aad u fara badan la doonayo in lagu jibiyo rikoorka lagu doonayo ciyaaryahankan oo markaasi si markaa loo iibsado. Griezmann ayaa ugu dambeyntii waxa uu tilmaamay inuu si toos ah u doonayo inuu gabi ahaanba Atletico ka tago laakiin si rasmi looma sheegin kooxda uu ku wajahan yahay. dhinaca kalena ciyaaryahanka lagu magacaabo Luka Modric oo ciyaara kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa markale waxa uu ku guuleystay ciyaaryahanka ugu wanaagsan dalkaasi Croatia isagoo ku guuleystay markii toddobaad oo xiriir ah. ninkan lagu magacaabo Luka Modric oo marka Real Madrid numberka buuxa ee deeshaha u xirta. Luka Modric ayaa hore waxa uu guuleystay ilaa iyo 6 jeer halka markan ay u noqonayso markii toddobaad oo marka uu ku guuleysanayo ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee dalkiisa isagoo markaa sidoo kale hore u jireen ciyaartoy dhowr oo sida markaa ciyaaryahanka Rakitic ay kamid yihiin oo markaa ciyaartoy kale dhowr ay kamid yihiin ciyaartoyda hore ugu guuleystay abaalmarintan laakiin ninka lagu magacaabo Luka Modric ayaa waxa uu markaa lagu doortay sanadkan isagoo ku soo guuleystay Ballon d'Or taana ay ka dhigaysaa in dalkiisa markale ku guuleysto inuu noqdo ciyaaryahanka ugu wanaagsan. ugu dambeyntiina tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola ayaa waxa uu xaqiijiyay inuusan ku laaban doonin kooxda Barcelona. warar ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay waxay sheegayeen oo ka soo baxayay wargeysyada dalkaasi Spain in macallin Pep uu bedeli doono Valverde oo si weyn taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Barcelona marka ay aad u naceen. macallinka reer Spain ayaa qabtay shaqada tababarnimo ee kooxda Barcelona sanadku markuu ahaa 2008 wuxuuna ku sugnaa ilaa iyo 2012 isagoo
isagoo muddadaasi kooxda reer Catalonia kula guuleystay 3 jeer oo horyaalka Liga iyo 2 jeer oo Champions League iyo Copa del Rey oo 2 jeer iyagana markaa sidoo kale macalinka uu ku guuleystay taa oo ka dhigaysa inuu ka mid ahaa macallimiintii ugu wanaagsanaa ee taariikhda soo mara kooxda Barcelona taasi ay keentay in lala xiriiriyo inuu markaa u dhaqaaqayo kooxda kubadda cagta ee Barcelona.